haddaad rabto inaad barato Airbnb-ga sida uu shaqeeyo iyo dadka sida lacag uga sameeyaan iyo haddaad rabto in adiga guriga leedahay Airbnb aad geliso maanta arrinta ayaa ku sharaxaya oo step by step guide ah walaal soo dhow magacayga waxa la yiraahdaa Daahir halka waxaan kaga hadlaynaa real estate investment fix and flip Airbnb arbitrage ama wax loo yaqaano side hustle ama wholesale kaga hadlaynaa halkan insha Allah soo dhawow na soo follow garee fiidiyoda hadii ka badan yihiin 2 daqiiqo waxaan soo galiyaa YouTube-kayga halka ay aadi kartaa ayaa ka daawan kartaa waan ku bilaabayaa tartadaad aan ku sharaxo Airbnb-ga wuxuu yahay si aad u fahanto Airbnb-ga lagu sheegayo waa dadka badana markay rabaan inay meel aadaan ama safraan hotel ay kireystaan intii hotelka kireysan lahaayeen guri qof uu leeyahay shakhsi uu leeyahay degaysa qolkaas gurigaas uu noqon karo haduu qoys aad tahay balaaran aad tahay kale aad tahay guri waxa raadinaysa 4 qol ama 5 qol ama 6 qol adiga qoyskaada hadaad doontaan waxa sameyn kartaan inta meelaha kale aadana cunto soo iibsan kartaan guriga cuntada ku karsan kartaan waa guri caadi ah deegaanka kale waay guri hoteelada uu ka qaalisan yahay badana laakiin nidaamku saas u shaqeeyaa soo hadda rabto in adiga samayso gurigaada ku samayso inaad leedahay guri khasam ma aha nidaam la isticmaalaya jira loo yaqaan Airbnb arbitrage mar kale ayaan ka sharaxi doonaa insha Allah video kale ka soo sameyn doonaa soo taasi gooni waa iyadana لكن هذا اللي ده جوري أديجنت هاي أصدق قل له هاي أما أفر قل ديرات عاد استعمال وجرو أو كسرة قل كاسة أي كرين كرتا العقب حق سمين كرتا $60 $100 حق سمين كرتا أو ويكند جيفن ذاك رسالة توريست ذاك رسالة الله بقول ديرات كاسو راح صدق قار وسميان العقب يلقى سميا لكن مكوب بالله نظام كأسمين أديك هذا دارتنا سميسو دارتنا بالنظام كقوة أينا سميسو حلو وينا إسكر رجست كريسا بلاتفورم كAirbnb وليه هاي مقعدة جلنسا information كذا نبى جلنسا مركز جلسوا أوكي tan labaad waa ina listing creation wax la sameeysa oo ah gurigaada waa ina gelisaa systemka gurigaada haduu meesha location inuu ku yaalo waa ina gelisaa muhiim waa aad bay muhiim u tahay sababtoo ah hadana gurigaada wax loo yaqaan amenities baa jira oo ah guriga haduu leeyahay kuwa qaar swimming pool bay leeyihiin kuwa qaar features khatar ay leeyihiin gurigaada waa haduu 2 qol yahay haduu 3 qol yahay wuxuu yahay everything waa ina gelisaa muhiim waa soo ka soconaya hadana waa ina house rules ina samaysto gurigaada dadka qaar waxay doonaan bay ku sameeyaan soo waa ina dhada waxa lama sameyn karo waxa la sameyn kara rules ka ina adiga la sigaraysa loo baahan yahay muhiim tahay waxyaalaha adiga jeceshahay kale hadda ka socdo hadda inta samayso iyo qiimaha rabtina ku kareyso muhiim baad u tahay location-ka ku xiran tahay wax walba location-ka guriga ku yaalo St Cloud iyo guriga ku yaalo Diner isku mid laguma kiran karo as Airbnb most likely isku mid ma noqonayo so location-ka wax walba bedelayo waxa jira website laga eega jirta waxaan ku sheegay hadda website shada ka arki doonta waa aadi kartaa hadda samayso labada ka soo dhameysay dadka way arkayaan website-kooda waxa ka arkayaan Airbnb ka arkayaan way book gareysanayaan property-ga nooc ay rabaan bay fiirinayaan so way book gareysteen adiga notification ku soo galaayo ama waa accept gareyn kartaa ama decline ku sameyn kartaa qofka inuu gurigaada joogo daarta beeki hadda accept gareyso in lacag ka sameeysa rabtaa most likely muhiim waay so the next step waxa weeyaan Airbnb ayaa waxay qaabilaysaa wixii ku saabsan payment-iga ayaga la wareegay was just like lifting kala soo shaqeeyo kala waay so marka koowaad lacag service fee ka goosanayaan lacagtii kale way ku soo dirayaan haddana kadib qaybta ka soo dhamaata waa xiriirkii waaye adiga iyo ninka hadaad aqsab gareyso waa ina xiriirtaan adiga ninka guriga iska lahaa saa u imaataan gurigaada qofkii inuu access u helo loo baahan yahay muhiim waay haddana wax loo yaqaano check in and stay jira soo guriga qofkii inuu jagareeyo waaye soo imaado badana dadka qaar waxa kula taliya gurigaada inay ka dhigaan keyless key inay soo qaataan gurigaan key lahayn bahal yar waxa loo yaqaan waa jira fob just like gaariga oo kala haysataan oo kale baa jira just like saas u taabanaya albaabka uu furmaaya ama code baa ka dhigi karta albaabka lagu galaayo labada midkood oo sameyn karta muhiim waay qaybta kale waxa weeyaan wax loo yaqaan cancellation policy waay guriga waa la cancelaya dadku cancelaya last minute-ka soo badana wax loo yaqaan Airbnb cancellation policy leeyihiin oo ah mararka qaar waxa laga yaabaa lacagtii dadkii loo wada celiyo qofkii mararka qaar service fee ku charge garanayaan extra ku charge garanayaan qofka last minute kale haduu cancelo oo guriga $150,000 waxa laga yaabaa in lacag ka reebtaan soo lacagta laga reebtay adiga hadday tahay like almost 80% adaa qaadanayso haduu ay ka reebtaan $50 ay ka reebtaan oo kale $30 ku siinayaan oo kale ku siinayaan so hadana the last one waa waxa loo yaqaan host payout waaye waa lacagta lagu pay garan lahaa waaye so bangigaada ayaa lagu soo transfer garanaya badana Airbnb waxay aqbalaan oo kale any bank way aqbalaan also waxay aqbalaan PayPal hadda waxay ku soo dareen cash app ku soo dareen so way aqbalaan kulli ku shaqeynayaan so nidaamka saan u shaqeeya insha Allah hadda rabto arrimahan inaad barato website-kayga aadi kartaa Saxan Investor anything real estate hadda rabto inaad wholesaling barato fix and flip Airbnb arbitrage ama budgeting goal setting arrimo badan dhalinyaro badan oo adigoo kale ayaa ka baranaya arrimaha ka baranayo oo xirfadaha barto hadda rabto inaad guri iibsato insha Allah waxaad ka soo qaban kartaa website-kayga saxanrealty.com insha Allah way salaamaya khayr badan ma yarjeenaya